السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaa qiso yar oo xanuun igu qabatay. waana duceynaa ilaahayna ducadeena ha aqbalo, qof kastana aaminta iyadana ha nagu soo kabto. qof kastaba afkiisa qaar ayaa la saaray oo ilaahay dadka raadi ka yahay ayaa nagu jiro. dadna ilaahay raadi kaamil oo ka yahay, dadna allah raadi kama ah. waxaan ka hadlaa ilmaha ootiisimada. alxamdulilah, ootiisimada dhowr nooc ayay noqotaa. mid waa midda ugu horeyso disability oo maskaxda garoobiyeynin, oo maskaxdada qalaas oo ba iska noqdo curyaan oo wax fahmaya mana fahmayaan. gabadha saaxiibanaana ayaa haysato, wayna fahmay mana fahmayso. xataa indhoolo waay dheh, anigaa dhaha indho way qabtaa, dhagoolo waay dheh, dhago way qabtaa haan dhahay. markii kulli ay soo jeekaraysan waa run aa la yiri. markii ugu dambeysa ay dhaheys waa run. midna waa bixe ilmaha oo kuleelka oo dadka dilaayo, oo qaniinayo, oo dulminayo, oo laga noolaa karo, waxa oge adduunka jirin wax alla wuxuu rabo iska sameynaa. kuna waa ku wax yarna fahmaya laakiin madax adag oo warkiisa war kale inaa ku darti rabin, asaga leh wuxuu dhaho leh inay socoto leh jecel, oona warkaada ku soconin oo tiisa leh ku socoto. masala hadda ka soo hadleen fiidiyowgan saaka ayaan chapati oo asaga cunaa, cunto kale ma cunaayo. hilib ma cuno, baasto ma cuno, bariis ma cuno, bataatis ma cuno, karooto ma cuno. wax alla aa cuno ilaahay sameeyey oo nicmada ilaahayna siiyo waxaa ka jirta chapati, rooti aa kusoo xogo, jukulaato la marinayo, iyo caano arya. caanaha looda xasaasiyo ku qabay, caano lo iyo orange juice bas. casiirka oo oranjada ah halaas ayaa ka cunaynaa. raashin tuwan iyo tufaax iyo hal xabo tufaax iyo cananaas. markaan sameynayo jabatiga maskaxdiisa waxay dhaheen dadka ilmaha fiiriya waxay dhaheen maskaxdiisa 10 bilood 11 bilood camal. October ayuu noqonayaa sanad. maantana waa bishii 9 2026. taariikhda waa 6 maanta. marka dhibkaas ayaa dadka iska haysto. marka jabatiga intaan sameynaa cajima fadhiiso, sit down, fadhiiso. wuxuu ku leeyahay adigii hooyo, wuxuu ku leeyahay baaba baaba baaba, aaba aaba aaba. aabi waxaa leeyahay hooyo 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 hooyo. wallaahi alxamdulilah. hadda marka aan jabatiga aan sameyna, jabatiga ceeri waa intii la cajiimayo, haddana kuskuusaysid, fidinaysid, haddana sugaysid, kuwii kale sameynaysid. ooya aado caloosha ay hurtay si aan yeela ayaan samey waaye. waxaan dhahay yaa rabbi ilaahayo sabar naba ayub isii. awal waxaan ahaa jira dadka aanan sabrin oo ciyo xanaaqo haddii qof ay hadal xun dhahdo. dadka ku dhaga hadlin ayaa ahay. dadka aanan maagin ayaa ah. laakiin hadii lay maaga ma sabro, ma ku maagay. laakiin haddaa imaagta ma sabra. ciyoobaa xanaaqa. ilmaha ku xanaaqi jira, adooga ku xanaaqi jira. dadka hadday hadal xumi dhahaan waan ka xanaaqi jiray. qof aa xushmeyna hadday taane intaa ciishooda ayaa oynaa. dad qof aa iska celi kara, iska celiskama oho gacan amba kusoo bood. afkeyga oo iskaaga celi karo, isku daafici karo waan u jawaabaa. saas ayaa ahaa jira. markuu cunugan allah subxaana watacaala isiiyey, waa nicmo ilaahay isiiyey. wuxuu ilaahay ii siiyey waxbaa ku jiro. waxaa ku jiro inaan sabro, aan noqdo qof oo qabow. markasta ilaahay waxaan ka tuugaa salaada markaa dugad, ilaahay oo sabarnaba ayub oo ciyaalka iyo adooga iyo dadka iyo wiilkan aan ku xamilo ilaahay isii. ilaahay dacwadu waa ii aqbala. hadda maxanaaqa ma qarsho. hadii qof waxay dhahdo waxayga waan ka qaataa. wixii ay iiga gardarata warsaanaysaan ma ii qabataa. maxaan ka hadlay inkastoo dulmi badannaana oo soomaalinaana oo mala abaalka iska socdo. anigu waxaan aaminsanahay qof soomaaliya haddii wax kasta i dhahdo, ilaa nin sheekha caalima waan aamina, laakiin inta kale ma aamini kari. 2% ayaa run sheegaa, halaha kalo allahu soo hadiyeeyo. daraad camal waa baxnay shopping ma soo sameynin. bangiga u socday. ninac ma siiya, ninac arka waaw gaal iyo musla anaa laydayaa, madow iyo cad anaa laydayaa. shalala xataa jismigiis wax oo maasa qabanaysa camal. sweet ma siiyo, sweetka ma la sii karo. sweetka ilaa wax muhiima uusas camal u qaylinayo ninaca. ninac ma siiyo, jokolaatooyinka ma siiyo.
asna saas uma jeclo nanacyada xataa waa hal iyo labo jilaato ma cunaayo waa soo qaaday ma gedin ninaci waa gaday hal xabaa u fiiqo wuu dhameeyey kii kaloo dhaa swid kii kale ayaa soo qabtay markaas soo qabtay waa siiye markaas siiye dhulka markaas wixii dhan soo dhamaystay haddana wuxuu necab yahay buuqa iyo dadka iyo baabuurta dhagaha ayuu qabsanaa markuu yaraa waxaas ma fahmayn hadda wuxuu fahmayay dheheen adiga waa 11 bilood 10 bilood camal sanad camal dheheen dhagiyoo qabsan waada sootee wax ka soo dheer iyo wax ka xoog badan ilaahay maba uuminbo ilkaadaan ka u cadaynayo ma ka yeelo anigu dadka ilmahooda 4 bilood cadaga ku bil ka yarirba markay soo dhashay cadaga ku bilaaba ahay maasha allah xoog u qabtay ilkiya xoog u wacdeeyay xooga gabdhaha aniga kullu isla qabanayna hadda tinta meel kasta tinta daagay waa lay burinaa ma yeelayo soodkiisa caali waa hadana madaxiisa oo jaljila warka badan waxa tiriyaan tren baskiya soo istaagnay waxaa dhacay nanaci dhul nanac ku dhaco cuduradan socdo sidaa u aragtiin waa orda dukaamatar oo baska ku hor yaala galay dadkii cuntada cunaani cunuga koryosa nagala daya soo orday markaas soo orday waa waayo meel kala gal waa waay waxay danta igu qasabtay nanac meeshii inaan qaado oo biyo gado oo ninka gado ay 85 biya laga gaday nanacna maxaan ka bixiyay 10 biyo ninkii waxaan please wuu jiran yahay inaa ii dhaqdi biyahaygaan iigu dhaqdi jikadaada ma awooday hawdha ninkii maasha allah oo ii soo dhaqa woo isii waa mahadsantahay meeshii soo istaagna haddana anagoo bankiga ku jirno warku waa in kala biya ka dhigay aniga haddana bankiga ku jirno wuxuu sameeyay qaylo dadka badan u naca xog u qash nin duq oo kaash xagga bankiga gudaha kala bax shash afkiisa kala qayli koryoos ka dhahdina oo qalsh koryoos ka dib oo yimaade maxaa ku dhaco hataa qaylisi dadkan adiga wax waala leesii tahay laakiin shibooy bad markaas ku excuse me waaya ugu qaylini ahaan dhahay oo jireen oo tiisi muuqba weligee codkaas ma maqlin markaas dhacday hadana maqlin anaga dhibkan haysta parents fam hooyanahne adigu shibiska ahaawe dadkan way aaminsiina iska bax waxaan camal ilmo miya kuwan camal ilma laga dhiganaa arag waxaan see u yaalaan sida dulinimada fiire naagto hala hadlin waxaa naagta oo ii sameynaysa bankiga waxaa hala hadlin waxaa maskaxdu la-yahay maxaa kala hadle ninkii dhahay ma maqlin oo tiisima muxuu ogyahay dhada xoolo waaye xoolo maa la hadlaya dhada waa xoolo ninkaani bas maasha allah qaarkood aad adiga kuula jirayaan waa soo baxna guriga daa imaanay baahi wuxuu rabaa inuu iska siiyo surwaalkii oo siiba hadaa jidka baran surwaalkuu siiba wuxuu ku leeyahay hadana waxaba kaaga sii daraba xafaayadii loo galshay inuu siibo rabaa balbalow maxaa sameynay hadhown waxaa lagu leeyahay hooyada cunuga mas-uul kama noqon karto wixiisii ayuu banaanka soo dhigay hadda go-aan waxaa gaara xataa xadiiqada geejir inaanan geyn hadda surwaalkii xafaayadii ku socdo waxaan xaawil inaan xafaayada ka joojiyo مسقشة جينا مسقشة نو مربي واو أول ما هدلين هذا حبد هذا لو ده إنجليزي ونكو ده متكل واحد كسيتر هويا ميدا يروحوا كله بابا أبا هويا لما من حالس كده أبا هويا وحلاقة أركي إن دوفارك أو بيبيكل ده هاي أكارك telefisinkana ma siiyo hadalkanba waxaan ka helnay telefisinkana ma siiyo inuu telefisin fiirsado alaabay badana usoo gada baabuur tareemo waxaasaan ku mashquuliyaa ma siiyo telefisink markoo waaw marmar dhaho oo aad u qeylsho gabadhayda ay barta dhad hooyo marka badam uusaan kugu qayli lahay si teleefonkaada oo wax sii ha aamuso ha fiirsado xalahaasoo kasoo barta wax fiican ma kasoo baranin aadna fursad waxaan iskugu helnay markii oo iskoolka la xiray oo iskool oo la haajiray ayuu si fiican oo bartay awal indhaha ku dayin hadda si fiican u ku dayaa haddaan saana sameynay waa sameynaa oo markaan ku qorsho raala ahaa doon wari murugta iska dhaaf
aba lagu dhaha waa lasoo tuuraa marka alxamdulilah washukr caalamiin qofta haysatan allah u caafiyo midda kale aan ku darsan rabaa wiil walaala ayaa saaka dhageystay oo ka hadlayo waana maqlay anigu waxaan jeclaa inaan iskuul guri ilmaha u sameeyo laakiin guriga aan deganaay ayaan ka guuray meel kale ayaan degay oona munaasabka oona computer waxba aalin hotel camal oo falaad ah waaye taa guri ka helayo dowladda marka waan bari lahay gabadhayda mid aadaysa dugsiga sare ayaan rabay inaan guriga ku baro markii arintaas ayaa igu dhacday gurigii waan ka baxay magaalo kale ayaa tagay magaaladii waa leeqaabili waay magaaladeedii aan kusoo noqday hotel ayaan ka koray waan rabay gabadhayda inaan guriga iskool ku baro oo guriga macallimiintu way iga yeeleen dugsiga saro councilkana warqada u qoranay laakiin badamaan gurigii computerka iyo wixii xataa computer usoo gaday waxa usoo gaday printer macallimiina ugu qabtay online-ka waxaan rabay dabaalnaankii way dhib badan tahay waa iska dhib badan tahay laakiin hataa saan ku badbaadiyo anigu haddaan wallaahi suma wallaahi anaa iska hadlay shaqsiyadii aan baasabor British haysan lahay wadamo badan ayaan degi karaa wadankayga haddama haysti baasaboorkayga aan ku degi lahay Soomaaliya muhiimad buu Kenya ayaa taalo Dubai ayaa loo waxaa yaalo Bahrain Qatar ay meel oo ilaa Masar ay meel ilaahay oo maarda Allah waasac waaye ayaa degi kartaa mush muhiimad inaan Soomaaliya dego Jabuuti ayaan degi karaa Soomaaliya doo ilaahay xal uu keenayna Allah subhanahu wa ta'ala uu keenay qof kasto markaan dadka hor istaago qofba ka hadlayso maba jirto muslim iyo gaal nin kasta wuxuu fiiriyaa benefitkaas maalika aqaawanta waxan waa hadiyo macaan badan waa diinteeni macaanta badneed waa wax la hajimohaya qof daafacaysana ayna jirin laakiin diintan Allah daafacanayo xaafidayo waxaa iga dhiman baasaboorka 3 sano mar hore waan qaadan lahaa laakiin wax arin ayaa laygu diiday marka waan iska sugaa insha Allah 3 sanana waxaan xawilaa sida ugu dhaqsiida badan 4 bilo 3 bilo meeshaan degana tuulo oo laygu siiyo guri ilmeyga home school ayaan ku baranaa waxa ka sii caloolxumo badan ilmaha autismada hal maskax ay leeyihiin maskaxdaas waxay qabato leen ku shaqeynayaan video ugu dheeraaday 12 daqiiqo ayuu gaaray salaamu calaykum waraxmatullaahi video saan oo kale haddana in soo galna insha Allah ka hadlaayo